ku soo dhowaada qisooyinka asxaabta. Maanta waxaan ku soo qaadanaynaa qisada saxaabiga jaliilka ah ee Abu Dar al-Qifaari. Abu Dar al-Qifaari waa saxaabiga soo islaamiyey tolkiisa oo idil. Togga lagu magacaabo Wadaan ayay degganaayeen qabiilka reer Qifaar. Waxaa yar ee ay u soo tuuraan socotada Quraysh ee u kala goosha magaalooyinka Shaam iyo Xijaas ayay ku noolaayeen tolkiisa. Mararka qaarkood waxaa dhacda inay si awood leh ay cuntada uga qaataan, waa haddii aynan siinin markaas waxay doonayeen. Haddaba saxaabiga la yidhaahdo Jundub binu Junaada, kunyadiisuna tahay Abu Dar, ayaa wuxuu ka dhashay qabiilkaas aan soo sheegnay ee Qifaar. Hase ahaatee wuxuu qabiilkiisa kaga duwanaa isagoo ku caanbaxay caqli hufnaan, garaad sarreeya iyo isagoo lagu yaqiinay inuu lahaa aragti aad u xeel dheer. Kuma uusan niyad fiyoobeen sanamyada ay caabudayeen tolkiisa. Wuxuu si daran uga soo horjeeday waxay carabtu ku sugnaayeen oo ah cibaado qaldan iyo caqiido aan waxna ka jirin. Wuxuu u hanqaltaagayey inuu soo baxo nebi cusub oo buuxiya dadka laabtooda, islamarkaasna ka saara dadka mugdiyada iyo baadida ay ku sugan yihiin, una saara iftiinka iyo nuurka xaqa ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa maalintii dambe Abu Dar soo gaaray isagoo ku sugan miyiga wararka sheegaya nebiga cusub ee ka soo bixi doona magaalada Makka. Abu Dar oo doonaya inuu ka salgaaro warkaas ayaa wuxuu ku yidhi walaalkiis Aniis hadalladan: Aniisow, waxaad u kicitintaa Makka oo waxaad isdul istaagtaa wararka sheegaya ninka lagu sheegay inuu yahay nebi oo xagga samadana looga waxyoonayo. Hadalladiisa bal noo soo dhegayso, dabadeedna iila imow wuxuu sheegayo. Aniis oo ay walaalo ahaayeen Abu Dar ayaa durbadiiba u kicitimay Makka. Nasiib wanaag, markii uu yimid Makka wuxuu la kulmay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, wuuna dhegaystay hadalladiisa, kadibna wuxuu ku soo laabtay miyigii uu ku sugnaa Abu Dar. Abu Dar ayaa si xiiso leh uga dhegaystay walaalkiis Aniis wararkii ku saabsanaa nebiga calayhi salaatu wasalaam. Aniis wuxuu ku yidhi Abu Dar, walaahi waxaan soo arkay nin dadka ugu yeeraya akhlaaqda suuban, islamarkaasna ku hadlaya hadallo aan ahayn sixir. Abu Dar ayaa weydiiyey Aniis, dadku maxay lahaayeen? Aniis ayaa ugu jawaabay, waxay lahaayeen waa sixiroole, faalalow iyo gabyaa. Markii uu Abu Dar maqlay hadalladaas, waxaa sii korodhay xiisihiisii uu u qabay inuu soo arko nebiga cusub. Sidaa darteed wuxuu ka codsaday walaalkiis Aniis inuu u kafaalo qaado carruurtiisa intuu maqan yahay, sidiina ayuu ugu diyaar garoobay safarka Makka. Kadib markii uu aqbalay Aniis dalabkii Abu Dar, isagoo u dardaarmayna inuu ka digtoonaado dhibaatooyinka kaga imaan kara reer Makka, Abu Dar wuxuu u sahay qaatay safarkii Makka, isagoo horay u sii qaatay sibraartiisii biyaha ugu jiray, wuxuuna cagta saaray waddadii Makka si uu uga gungaaro yoolkiisii ahaa inuu soo arko nebiga iyo dhammaan wararka isaga ku saabsan. Ugu dambayntii wuxuu Abu Dar yimid magaalada Makka isagoo aad uga cabsanaya inay dhibaatooyin ka soo gaarto reer Makka. Wuxuu Abu Dar horay u ogaa carada iyo ciqaabta daran ee gaalada reer Makka ay marinayaan qof kasta oo raaca ama ay naftiisa ugu sheekayso inuu raaco diinta Nebi Muxamed. Sidaa darteed wuxuu Abu Dar dhibsaday inuu dadka weydiiyo nebiga. Maxaa yeelay ma uusan garanayn qofka uu weydiinayo markaas inuu noqon karo taageerayaasha nebiga iyo inuu noqon karo cadowgiisa. Markii la gaaray habeenkii, wuxuu Abu Dar u diyaar garoobay inuu seexdo masjidka. Iyadoo uu Abu Dar ku sugan yahay masjidka ayaa waxaa soo agmaray Cali bin Abi Daalib, Allaha ka raali noqdee, wuxuuna gartay inuu yahay qariib ama marti. Cali ayaa ku yidhi Abu Dar, nin yahow kaalay oo i soo raac. Sidiina ayuu Abu Dar ugu raacay Cali gurigiisa. Markii la gaaray subaxii, wuxuu Abu Dar soo qaatay sibraarkii iyo oleygii ama qandigii uu horay u watay, wuxuuna ku soo laabtay masjidka iyagoo aan iswaraysan. Maalintii labaad wuxuu Abu Dar ku dhammaystay isagoo aanan weli arag nebiga cusub ee uu ku rajo weynaa inuu arko. Markii la gaaray habeenkii kale, wuxuu Abu Dar u jiif tegay masjidka. Hase yeeshee sidii hore oo kale ayaa waxaa soo agmaray mar kale Cali bin Abi Daalib, wuxuuna ku yidhi, sow lama gaarin wakhtigii uu ninkan aqoonsan lahaa gurigiisa. Dabadeedna wuxuu u waday gurigiisa, sidiina ayuuna ula seexday habeenkii labaad, iyadoo misna sidii oo kale ayna weli iswaraysan. Waxaa dhammaatay muddadii martida.
markii la soo gaaray habeenkii saddexaad abuudarna uu gudbay muddadii martida ayaa cali si deganaansho leh u weydiiyey isagoo ku leh ka waran haddaad ii sheegtid sababta aad u timid maka abuudar wuxuu cali ku yidhi haddaad ballan adag iga qaadid inaad i tusinaysid waxaan doonayo waan kuu sheegayaa cali wuxuu abuudar ka ballan qaaday inuu fulin doono ballantii uu la galay isaga abuudar wuxuu yidhi waxaan maka uga imid meel aad u fog dantayduna waa sidii aan ula kulmi lahaa nebiga cusub iyo inaan dhegaysto hadalladiisa farxad awgeed waxaa furfurantay wejigii cali binu abidaalib wuxuuna ku yidhi abuudar wallaahi ninkaad sheegtay waa rasuulkii alle ee xaqa ahaa wuxuuna intaa u raaciyey markii la gaaro subaxii aniga ayaad isoo raacaysaa haddaan arko wax aan kaaga cabsanayo waxaan u istaagayaa sida anigoo la moodo inaan daadinayo biyo oo kale haddaan sii wato socodkana isoo raac jeer aad ka gashid meesha aan galo abuudar laba indhood isuma keenin habeenkaas hilowga daran uu u qabo la kulanka nebiga cusub awgeed subaxii markii la gaaray waxay cali iyo abuudar yimaadeen gurigii nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu yimid abuudar wuxuu ku salaamay rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaantii ay carabta isku salaami jireen ee ahayd cimta sabaaxan ama subax wanaagsan hase ahaatee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa u sharxay inay muslimiinta isku salaamaan salaan ka duwan taas riwaayad kale ayaa sheegaysa inuu abuudar ku salaamay rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaanta islaamka sidaa darteed ayaa loo yidhaahdaa wuxuu abuudar ahaa qofkii ugu horreeyey ee ku salaama rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaanta islaamka dabadeedna sidaas ayay ugu dhex shaacday muslimiinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu u soo jaleecay soona qaabilay xaggii abuudar isagoo ugu yeeraya inuu soo islaamo wuxuu ku dul akhriyey qur-aanka wax yar kamaba soo wareegan jeer durbadiiba uu abuudar ku dhawaaqo tawxiidka wuxuuna ku soo biiray diintii cusbayd isagoo weli ku sugan fadhigii iyo goobtii uu joogay nebiga calayhi salaatu wasalaam abuudar wuxuu galay lambarkii afaraad ama shanaad ee soo islaama sheekooyinka abuudar ee haray waxaa inooga sheekeynaya isaga laf ahaantiisa abuudar ilaah ha ka raali noqdee wuxuu yidhi wixii intaa ka dambeeyey waxaan magaalada maka la joogay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu i baray guud ahaan aqoonta la xidhiira diinta islaamka wuxuu igu akhriyey qaar ka mid ah qur-aanka kadibna wuxuu igu yidhi inaad soo islaamtay qof deggan maka ha u sheegin waxaan ka cabsanayaa inay ku dilaan waxaan ku idhi waxaan ku dhaaranayaa allaha ay naftayda gacantiisa ku jirto inaanan joogi doonin maka jeer aan ka tago masjidka xaramka si kor lehna aan ugu dhawaaqo dacwada xaqa ah iyadoo ay arkayaan gaalada quraysh rasuulka calayhi salaatu wasalaam jawaab kama bixin oo wuu aamusay waxaan imid masjidka iyadoo qurayshna ay fadhido oo ay sheekaysanayaan dhexdooda intaan galay ayaan codkayga kor ugu qaaday anigoo leh jamaacadda qurayshay waxaan si dhab ah u qirayaa inuusan jirin ilaah aan ka ahayn allaha xaqa ah waxaan kaloo si dhab ah u qirayaa inuu maxamed yahay adeegihii iyo rasuulkii alleh hadalladaas markay si fiican u gaareen dhegihii quraysh hal mar ayay si daran u fajaceen iyagoo aad u caraysan ayaa waxay ka kaceen fadhiyadoodii waxayna yidhaahdeen ha la qabto kan diintiisa ka gaaloobay xaggayga ayay soo aadeen waxayna bilaabeen inay i garaacayaan oo i dilayaan jeer uu iga soo gaaro cabbaas binu cabdilmudalib oo nebiga calayhi salaatu wasalaam adeerkiis ahaa cabbaas ayaa isku kay daboolay si uu ii badbaadiyo dabadeedna wuxuu ku yidhi war ma waxaad dilaysaan nin reer kifaar ah iyadoo safaradiina ay maraan waddada ay degaan reer kifaar sidiina ayay faraha iiga qaadeen markaan soo miirsaday ayaa waxaan u imid rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhaawaca i soo gaaray ayaa wuxuu yidhi sow kaama reebin inaad islaamkaaga shaacisid waxaan idhi rasuulkii allow nafta ayaa sidaas doonaysay oo sidaas ayaan u sameeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa igu yidhi waxaad aaddaa tolkaaga waxaad uga sheekaysaa waxaad aragtay iyo waxaad maqashay uguna yeer diinta alleh maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inuu eebbe subxaana wa tacaalaa adiga kugu anfaco iyaga markaasna iyaga dartood aad ajar u heshid hadday ku soo gaarto inaan awood yeeshay oo diinta bannaanka u soo baxday ii kaalay aniga
Abuudar wuxuu yidhi, waan soo kicitimay, waxaana imid magaalooyinkii ay degganaayeen tolkayga Khifaar. Waxaa ila kulmay walaalkay Aniis, wuxuuna igu yidhi, maxaad samaysay? Waxaan ku idhi, waan soo islaamay, oo waxaan rumeeyey Eebbe. Maba uusan sii joogin walaalkay Aniis jeer uu Eebbe laabtiisa ku waasiciyey diinta Islaamka, wuxuuna igu yidhi, ma nacayo diintaada, anigana dhinacayga waan islaamay oo sidaadoo kale waan rumeeyey. Intaa kadib waxaan u nimid hooyadeen, waxaan u soo bandhignay diinta Islaamka, waxayna nagu tiri, ma nacayo diintiina, sidiina ayay ku islaamtay. Wixii ka dambeeyey maalintaas waxay qoyskii Muslimka ahaa guda galeen inay ku dhex fidinayaan qabiilka Khifaar diinta Islaamka. Jeer ay markii dambe ka soo islaameen qabiilkaas khalqi aad u fara badan, dhexdoodiina laga oogay salaada. Inkastoo qabiilka Khifaar ka soo islaameen dad aad u fara badan, haddana qaar kale ayaa goostay inay islaamkooda la sugaan inta uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka imaanayo magaalada Madiina. Hase ahaatee, kolkii uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo galay magaalada Madiina way soo islaameen dhammaantood. Maalmo ka hor qabiilka Khifaar hal nin ayaa Muslim ka ahaa, laakiinse wakhti yar kadib wuxuu Eebbe qadaray inay dhammaan qabiilka Khifaar ay u soo wafdiyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyagoo muslimiin ah. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa si farxad, naxariis iyo muusood weyn aad u weyn ku dheehan tahay u eegay wejiyadii reer Khifaar, wuxuuna isagoo u ducaynaya ku yidhi, Khifaar Allaha u dembi dhaafo. Wuxuu misna jaleecay qabiilka reer Aslam oo iyagana ku soo islaamay gacantii Abuudar. Wuxuu sidoo kale iyagana rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku yidhi, Aslam Allaha nabadgeliyo. Wixii intaa ka dambeeyey wuxuu Abuudar deganaa miyiga jeer laga soo gaaro dagaalkii Badr, Uxud iyo Khandaq. Intaa kadib wuxuu ku soo laabtay magaalada Madiina, wuxuuna u go'ay la jirka rasuulka calayhi salaatu wasalaam, isagoo weydiistayna inuu u istaago adeegga iyo khidmada rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam si kal iyo laab ah ayuu uga oggolaado codsigii Abuudar, wuuna ku liibaanay khidmadiisa iyo adeeggiisa. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam si aad u fiican ayuu u soo dhoweyn jiray Abuudar. Ma dhicin inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu la kulmay Abuudar, markaasna uusan gacan qaadin oo uusan si farxad leh ugu muusoon. Markii uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam geeriyooday, Abuudar wuu u adkaysan waayey inuu ku sii negaado magaalada Madiina, kadib markii magaaladaas uu ka dhintay sayidkeedii, ayna cidloobeen fadhiyadii cilmiga ee uu bixin jiray xabiibka rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Wuxuu Abuudar u guuray miyiga Shaam, halkaas ayuu negaa muddadii khilaafada Abuubakar iyo Cumar dhammaantood Allaha ka raali noqdee. Markii la soo gaaray khilaafadii Cusmaan binu Cafaan Ilaaha ka raali noqdee, ayaa uu Abuudar yimid magaalada Dimashq, wuxuuna arkay dadkii oo si xad dhaaf leh ugu mashquulsan adduunyada. Waxay la noqotay yaab iyo amakaag. Waxaa Abuudar loo soo bandhigay dhaldhalaalka adduunka iyo inuu xitaa madax ka noqdo Ciraaq oo wuu diiday, wuxuuna dadka alaaba uga digi jiray inay ku kadsoomaan fidnada adduunka iyo in laga fogaado madaxtinimo jacaylka. La yaab ma lahan inuu sidaas Abuudar ku sifaysnaa, maxaa yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu horay u ogaa runta xeesha dheer iyo aragtida sawaabka badan ee uu xambaarsanaa Abuudar. Sidaa darteed wuxuu suubanaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam kula dardaarmay Abuudar inuu badiyo dulqaadka faraha badan iyo samir badan. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam weydiiyey Abuudar su'aal macnihiisu ahaa, Abuudarow, ka waran haddaad gaartid madaxdii oo naftooda ugu talagalay hantidii qaniimada? Abuudar ayaa ku yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, haddaba Allaha xaqa kugu soo saaray ayaan ku dhaartaya inaan seeftayda kaga shaqaynayo kuwaas. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa haddaba siiyey Abuudar dardaarankan, ma ku tusaa wax ka khayr badan taas, sabar oo dulqaado jeer aad igala kulantid. Abuudar si wacan ayuu u xasuusan jiray dardaarankaas uu siiyey macallinkiisii weynaa ee isaga wax baray, oo seeftiisa weligiis ulama bixin mid ka mid ah madaxda muslimiinta. Hase ahaatee, waxaa hubanti ah in uusan ka aamusin marnaba qaladaadkooda ay samaynayeen. Maxaa yeelay wuxuu ogaa in ay furan tahay waddada waxsheega iyo nasteexadda.
sidaan horay ugu sheegnay maadaama aynan jirin qaladaad iyo khilaaf sidaas u sii weyn muddadii khilaafada abuubakar iyo cumar laakiin muddadii khilaafada cusmaan ayaa wuxuu abuudar oo markaas joogay shaam uu arkay inay muslimiintii si baan u qaabileen dhaldhalaalka adduunyada iyo iyagoo ku mashquulay raaxaysiga adduunyada taasoo isaga ku qasabtay inuu si daran isu hortaago dadkana ugu yeero ka fogaanshaha fidnada adduunyada goob kasta uu dego magaalo kasta uu galo iyo amiir kasta uu la kulmo wuxuu abuudar odhan jiray oraahdan uu ku caanbaxsanaa ugu bishaareeya kuwa maalka kaydsada kaawado naareed isagoo ka soo qaatay hadalkaas aayaddii uu alle ku lahaa kuwa kaydsada dahabka iyo fiddada oo aan ku bixin waddada alle ugu bishaareeya cadaab daran suuradda altawbah 34 marka dadku ay meel dheer ka soo arkaan abuudar waxay kula hortegi jireen oraahdan aan kor ku soo xusnay kuwa kaydsada dahabka iyo fiddada oo aan ku bixin waddada alle ugu bishaareeya cadaab daran madaxdii xukumaysay shaam ayaa dhibsaday dhaqdhaqaaqa uu wado abuudar mucaawiya binu abi sufyaan oo xilligaas xukumayay dimashiq iyo abuudar ayaa waxaa dhex martay dood aad u kulul ka akhri kutubta siirada ee ay qoreen culummada islaamka qodobadii uu abuudar kala doodayey mucaawiye ayaa ka mid ahaa guryihii uu ku lahaa shaam iyo guriga uu ku lahaa maka iyo halka uu ka helay hantidaas sow ma tihidiin dadkii joogay markii uu qur-aanka ku soo degayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu abuudar weyddiiyey su'aashaan xayn saxaabo ahayd oo meel fadhiyey isaga ayaa uga jawaabay su'aashoodii oo wuxuu yidhi haa waxaad tihiin dadkii uu qur-aanka soo degay idinkoo nool waxaadna kala qayb gasheen rasuulka calayhi salaatu wasalaam dagaallo badan abuudar wuu sii waday hadalka oo wuxuu yidhi war miyaydan aayaddan ku jirin qur-aanka isagoo akhriyena aayaddan kuwa kaydsada dahabka iyo fiddada oo aan ku bixin waddada alle ugu bishaareeya cadaab daran maalinta lagu gubayo hantidaas naarta jahannamo ay ku guban wejiyadooda dhinacyadooda iyo dhabarkooda laguna odhan kani waa waxaad u kaydsanayseen naftiina ee dhadhamiya waxaad kaydsanayseen ciqaabtiisa suuradda altawbah aayadda 34 mucaawiye ayaa hadalka qaatay wuxuuna ku yidhi aayaddan waxaa lagu soo dejiyey ahlulkitaabka yuhuud iyo kiristaan abuudar ayaa si sare leh kor ugu qaaday codkiisa isagoo leh maya balse waxay ku soo degtay innaga muslimiinta iyo ahlulkitaabkaba wuu sii watay abuudar hadalkiisa isagoo nasteexo u soo jeediyey mucaawiye iyo madaxda la socotoba inay isaga baxaan guryaha ay ku jiraan iyo beeraha ay leeyihiin iyo inaynan naftooda u kaydsan wax hanti ah wixii maanta ka dambeeya mucaawiye wuxuu u cabsaday xukunkiisa waxaa cabsi gelisay hadalladii abuudar hase ahaatee dhinaca kale wuxuu mucaawiye si fiican u ogaa mudnaanshaha iyo booska uu ka joogo abuudar sidaa darteed ma uusan u geysan wax dhibaato ah laakiin durbadiiba wuxuu warqad u diray cusmaan binu cafaan ilaaha ka raali noqdee isagoo ku leh ninkii abuudar ahaa wuxuu nagu diray dadkii degganaa shaam waxyar kadib waxaa abuudar u timid warqad ka socota amiirulmu'miniinka cusmaan isagoo u sheegay inuu ku soo laabto magaalada madiina waxna kuma falayo adduunyadiina ayuu abuudar ku yidhi cusmaan markii uu yimid madiina kadib markay labadooda dhex martay dood aad u dheereed ugu dambayntiina wuxuu degay tuulada lagu magacaabo alrabada kadib markii uu sidaas kula taliyey ama faray cusmaan binu cafaan alrabad adii cidlada ahayd ayuu iska nigaa abuudar wakhtigii dambe isagoo isaga fogaaday dadka si fiicana u haysta hanuunkii ay ku sugnaayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo labadiisa saaxiib abuubakar iyo cumar isagoo dunidan dhowna ka doortay tii baaqiga ahayd allaha ka raali noqdee abuudar wuxuu ku tilmaamnaa suhdi aad u weyn maalin maalmaha ka mid ah waxaa abuudar gurigiisa soo galay nin markaasuu ninkii isha mariyey gurigii abuudar mana uusan ku dhex arag gurigii wax alaabo ah oo yaalay ninkii wuxuu abuudar ku yidhi abuudarow aaway alaabtiinnii abuudar ayaa ku yidhi guri kale ayaa halkaa aakhiro ku leenahay gurigaas ayaan alaabteenna wanaagsan dhiganaa ninkii wuu fahmay ulajeeddada abuudar wuxuuna ku yidhi laakiin waxaa lagama maarmaan ah inaad guriga dhigatid alaab inta aad deggan tahay abuudar ayaa ku yidhi laakiin waxaad ogaataa in ninka iska leh guriga uusan marnaba nooga tegaynin guriga
maalin ayaa intuu abuudar fadhiistay yidhi hadalladan saaxiibkaygii aan jeclaa waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ii dardaarmay 7 waxyaabood waxayna kala ahaayeen wuxuu i faray jacaylka masaakiinta iyo inaan iyaga ka mid noqdo wuxuu i faray inaan eego qofka iga hooseeya oo aanan eegin qofka iga sareeya wuxuu i faray inaan qofna wax weydiisan wuxuu i faray inaan xiriiriyo qaraabada wuxuu i faray inaan ku hadlo xaqa haba qaraaraadee wuxuu i faray inaan alle dartii uga cabsan mid canaanaya canaantiisa iyo inaan badiyo oraahda laa xawla walaa quwata ilaa billaah waa hubaal inuu abuudar fuliyey dhammaan dardaarankaas wanaagsan ee uu siiyey macallinkii insaaniyadda ee dunidan soo mara cali binu abi daalib ilaah ha ka raali noqdee ayaa isagoo ka sheekaynaya abuudar yidhi maanta lama arko qof si alle dartii aan ugu aabayeelin mid canaanaya canaantiisa aan ka ahayn abuudar waa hubaal hadalkaas oo wuxuu si bareero leh ugu nasteexayn jiray madaxda muslimiinta isagoo aan ka cabsanaynin awoodda ay leeyihiin masaakiinta ayuu aad u jeclaan jiray iyagana ayuu ka mid ahaa weligii qofna ma weydiisan maal ama hanti amiirka gobolka shaam ayaa mar u soo diray lacag gaaraysa ilaa 300 diinaar isagoo ku yidhi lacagtaan danahaaga ugu kaalmayso jawaabtii abuudar waxay ahayd inuu lacagtii ku celiyey amiirkii isagoo intaas daba dhigayna amiirka shaamma wuxuu waayey qof aniga iga tabar daran allaha ka raali noqdee abuudar alqifaari wuxuu sannadkii 32 ee hijriga ku dhintay tuuladii cidlada ahayd ee alrabada weliba isagoo keligiis ah sidii uu horay ugu yidhiba rasuulka calayhi salaatu wasalaam allaha u naxariisto abuudar wuxuu socon doonaa isagoo keligiis ah wuxuu dhiman doonaa keligiis waxaana la soo saaro doonaa qiyaamaha keligiis waxaana intaas ku dhammaatay sheekadii saxaabigii qiimaha badnaa abuudar alqifaari allaha ka raali noqdee